magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa maanta si rasmi ah ugu bilaabatay doorashada kuraas kamid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana lagu bilaabay 6 kursi. Kursi ugu horeeyay Eber 33 oo doorashadiisu la qabtay ayaa waxa ku guuleystay Yusuf Ibrahim Afrax oo noqday xildhibaankii ugu horeeyay ee lagu doorto magaalada Jowhar waxaana uu mar kale sidaasi uga biiriya baarlamaanka 11 ee dalka. Afrax ayaa ku soo baxay codad badan oo gaaraya ilaa 69 cod halka musharrixii la tartamay ee Maxamed Xuseen Sabriye uu helay 22 cod sidoo kale waxa halaabay 6 cod sida uu shaaciya guddiga hirgelinta doorashooyinka ee maamulka Hirshabelle. guusha Yusuf Ibrahim Afrax ayaa la filayay maadaama uu ka mid ahaa xubnaha aadka loo hadal hayay in uu ku soo baxayo doorashada. sidoo kale doorashada ayaa haatan sii soconaysa waxaana la guda galay kuraasta xigta ee doorashada qorsheeyay maanta inay ka dhacdo Hirshabelle. kuraasta maanta la doorashadooda la qabanayo sidoo kale waxaa ka mid ah kursiga Hoob Eber 97 oo sanado badan ay ku fadhisay Khadiijo Maxamed Deeriye mar kale si gaar ah loogu xiray. sida ay ku bilaabatay doorashada Hirshabelle ee golaha shacabka ayaa muujinayso in Cali Guudlab uu ka leexday dhabbihii ugu horeeyay ee ku wajahay doorashadii aqalka sare oo aad loogu bogaadiyay waxaana durba soo shacab baxay cabashooyin ku aadan doorashada Jowhar. Soomaaliya ayaa haatan waxa ay ku jirtaa xaalad kala guur ah waxaana xiisadda ugu sii daraya cabashooyin hareeya hanaanka loo wajahayo doorashada golaha shacabka.